waxa ay mamnuucday isticmaalka shiishada dawladda waddanka Kenya go'aan rasmi ah oo ay ka soo saartay soo waaridaadka soo saarista ganacsiga isticmaalka idhiyada loo sameeyo iyo waliba qaybinta shiishada ayaa waxa ay ku tilmaantay inay tahay wixii maanta ka dambeeya sharci darro intii lagu qabtana ciqaab adag ay mudan doonto sharcigan oo soo baxay maalintii shalay 27 bisha December sanadka 2017 waxa si rasmi ah ugu dhawaaqay wasiirka caafimaadka waddanka Kenya Mr. Mailo oo tilmaamay qof kasta oo lagu arko isticmaalka iyo adeegsiga shiishadu in uu yahay mid xadgudub ku sameynaya sharciga lagu joogteeyo iyo isticmaalkeeda waxaana shiishada loo aqoonsaday dalka Kenya inay tahay dambi weyn oo ummadda markaasi lidku ah ciddii ku dhaqanta ciqaabteeda ay u dhaxayn doonto oo shilinka Kenya xabsi ilaa 6 bilood iyo weliba qofku marka uu iska bixin waayo lacagtaasi xabsiga inta uu ku jiro in maalin walba sida wasiirku sheegay 1,000 shilin oo lacagta Kenya ay ku soconayso wasiirku waxa kale oo uu tilmaamay in daraasad rasmi ah oo wasaaradda caafimaadka waddanka Kenya iyo jaamacadaha waddanka Kenya iska kaashadeen la xaqiijiyay saameyn weyn oo cudurro kala duwan oo dhaqanka iyo weliba bulshada midku ah inay shiishadu dalka Kenya geeyeen isla markaana cudurrada laga qaadaa ay noqdeen kuwa guud ahaan baa dhibaatadoodu dalka Kenya ay taabatay iyo juhdi badan la geliyay lagu guulaysan waayay maadaama dhibaato gaar ay la kulmeen سيد خليف وهو كبد يهي صحفيين تحسين قاركا ولصعدا لليرد الصوماليين كل غندلك كينيا استعمال كاشيشة قابكا يؤديك سدان يسام تايكو يرطي وحانو فيها ويدا وقوى رمي بل دباتا شيشة تاسي يسيدا لليرد وهات الأسطو دوينيسو قوانكا دولة ودك كينيا ياسين كسكو إن الشيشة تاي ماندورية هاليسا waxay sidoo kaleeto waxyaalaha qaar kala mid tahay qaadka sida dilista waqtiga qofkii oo qayirmaya lacagta tirada badan ee lagu bixinayo marka waxa mudan meelahaas inay qaadka kala mid tahay sidoo kaleeto waxay halis ku tahay sida la sheegay caafimaadka qofka oo markaasi qofkii uu si amaniyad ahaan iyo jismi ahaan u dhimanayo sidoo kaleeto shiishadu waxay dhibaato ku haysaa dhaqaalihii waddanka oo ama dhaqaalihii dhalinyarada gaar ahaan dadka isticmaala qaybaha Soomaalida oo dumarku ugu badan yihiin waxa la sheegaa in mararka qaar hooyooyin waaweyn ama dad dhalinyaro oo gabdhihii soo kacay ay daashan dilootay dadku si xoog leh u soo dhaweynayaan waxyaabaha ay dhibaatadii iyo inay khasaare u keento ma ahan wax faa'iido ah oo dadku ay ku qabeen ma jirto Afrikaanka laga mamnuucay shiishada waxa ka mid ah dalka Rwanda oo dhawaan go'aan rasmi ah ka soo saaray ciqaab adagna dusha laga saaray waxa kale oo iyana si rasmi ah u mamnuucay dalkaasi Tanzania kadib markii madaxweynaha dalkaasi John Magufuli oo bishii July ee ka soo gudubnay uu sharci ka dhigay la dagaalanka مخاطرات كشيشة أو عقاب أدق وصاري هرينا وضمنا دوكا لوغم نوع استعمال كشيشة أديك سيجيدا كبايع مشتركيدا يولي بصوص صاري كيدا وحكمنا دلكا باكستان جوردن سنغافورة يدلكا بقرطوية السعودية العربية